برصاكو قبل كتوغدر محمود علي سلمان رماح يعيدك بوليسكو كاشلي يعيدك قرنكا ايا هولغلا لا كفلي deegaanka gobol-dhibaxa wadooyinka u dambeeyay kadib shaqooyin ay iskaga hor yimaadeen qaar ka mid ah beelaha wadadega deegaankaasi howlgalkan ayaa lagu soo qalqabtay qaar ka mid ah rabshadayaasha iyo hubkii ay wateen gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa wacad ku maray inaanay u dul qaadanaynin cid kasta oo waxyeeleynaysa ammaanka isagoo baaq u diray labada beelood ee deegaankaasi urursiga ka waday kaliya waxa la idin sheegaya halkan ay ku dhigtay إذا أنا حكومة دائما أنا كتبت حكومة مسؤولة إذا كان بوليس كان مسؤولة أنا اللي قوي يديني يا كلمة إلى غيركم باللباحة والدائرة كانت إلى الرفق كلا صاري إلى الدولة دي خلطن من الثاني الكافي وطن ciidanku ku dul jooga waa in koobshaa laga cabaa ma dhacayso in ciidanku lagaga dhinto ama ku siiso hawada cidada kelmadii dhaqaaqna waa dul taagana halkii qori lagu sheegay waa dul taaganay meelaha la leeyahay ciidan baa joogana haddaanu gelaynaa kii telefoon u dirayo u dir kii oday dalbanayo dalbo annagu wixii aanu aragno sida qoryaha loo qabtay baanu ugu qabanaynaa weliba meel dheer baa laga dooni doonaa baryada kuwa baryada oo kooba kacay bas saamaxayno soolka imika todobaa laga qaaday afar way weelaysan tahay saddexdii qoryaan sidii gaar xukuumadda eedaynaysa idinma eedaysna qorigaasina inaanu soo noqon haddaanu idinku walnay gacanta dowladda sidaa u garan kaaga qabso nin walaweyna kakuqaa doolanaya qabso waan garanaynaa raggana marka xabadu dhacdo qoryahay wada tuuraya soddonkaynanay reermiyay isu yimaadaan ciidankaa uma babacdhigayaan ise soo taagi maayaan hala joojiyo doolaatanka hala joojiyo dadka la kharash garaynayo ee aan loo baahnayn dumarka magaaladan waxaan leeyahay iyo kuwa la midka ah hala joojiyo xumaanta wallaahi inaan inan dalboo la qabtay bay odhanaynin waa inantii laga soo dhammaaday duuqaad maalin walba halkaa waa sardaqad dhulka ilaahay intaa ballaarka leeg halkaas maxaa keenay nafaa ku baxay welina way iska hor caqligeena lagu ciyaarayaa haddii maalin walba ciidankii militariga iyo booliiska joogaan oo dhex taagan ee intaanu amar bixina la ogyahay geesta kale taliyaasha ciidanka kala duwan ayaa iyaguna sheegay inay gacan adag ku qabanayaan cid kasta oo ka hor timaada xasiloonida iyo ammaanka deegaankaasi halkan shaqaada ku soo noqnoqotay barasaabka gobolka Togdheer muddo ku soo noqnoqonay ciidamada muddo ku soo noqonayeen geedihaan iyo gumburlaba iyo eegada isku fadhigan shaqaadadu way ku fara badan waxaan u malaynayaa malaha dad sabri jiray inaan yaaftiyaha dadna caadi oo لكن ما طلب ما تكهن ما تكهن وحكوا لك كبحثا ليش تقول لك يقول لي ما طلب دعانه في الجلوه حسن دور وليروه مال الجلوه حشيش الجلوه gabadhii waxa ciidanka qaranku guud ahaanba burburiyeen isla markaasina cagta mariyeen goobaha ay dagaalka kaga jireen ciidan beeleedyadaasi qiitinaynay halkan in ciidankii lagu ururiyey ee shaqaaqadii halkaa ka dhacday heerka gacantu ku dhacday ay ciidankii soo ururiyeen inay kala direen sida loo qaatay amarkii amarkaas uu fulay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waxaan rajaynayaa maadaama soo qabatay in wixii ka dambeeyaanu gacan gelin sidii halkaa looga sii dhaqaaqi lahaa hadday tahay maxkamad iyo hadday tahay xajoodka
maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto Ariel TV magaalada Burco. ka fuliyay deegaanka uu ku yaalo riig dhawaan laga qoday degmada Huluul ee gobolka Sanaag halkaas oo bulshada deegaankaasi ku dhaqan ay ka sameysteen beero sharci darro ah maadaama hawlaha riigani ay wali qabyan yihiin isla markaasina ay deegaanka ka jirto abaar ba'an taasi oo sababtay inay isugu soo ururaan dadkii xooluhu ka dhamaadeen meelaha riigga ka agdhow kadibna dadkii magaaladu ay halkaasi beero sharci darro ay ka sameysteen taliyaha ciidanka aaraadiyuuda taliya nimcaan iyo sidoo kale taliyaha xabsiga Elafweyn Dhama Ibrahim Salabaan Allaale ayaa faahfaahin ka bixinaya qaab qorsheedka ay u fuliyeen hawlgalkaasi. Waxaa aragtaan aan ku raayo oo markood dadka ooday meesha xoolo ku soo meeshii biyo laga cabayay iminka ciidankan hadda ku wada shaqeynaya waa ciidankii aaraadiyuuda waa ka taagan nimcaan waxaan ka soo dhawaanay magaalada oo ay ka jireen abaaro ba'an ay ku dhufteen taasi oo dadkii caydhoobay xoolihii ka dhamaadeen oo loogu qaybinayay raashin yar ay dad carqaladeeyeen oo ay yidhaahdeen annagoo waxaan la siinayaana lama bixin karo saana lama samayn karo qoryana ay qaateen dadkii waanu qabanay badna kuurahay galeen oo weli waa ku daba taagannahay oo ku daba jirnaa hawshan aad imika arkaysaan waxaan ku dhahdaa ciidanku ay gulayaan aad arkaysaan waa riigkii loo qoday magaalada Huluul ee dadka layidhi ha ka cabaan ee emergency-ga loogu qoday riigkii bay dadka emergency way qaateen waxbaan ka beeraynaa maxaa wax laga beeri dadkiiba waa qabsi waana dhulqabsi lafihii biniaadamkaaba in la badbaadiyo ay dowladda iyo qaranku doonayaan iyagu waxay doonayaan inay dhulkii ootaan oo ay imika bilaabaan oo ay dadkii meel xoog istaagaan iyo meel dadkii istaagaan warkaa ceelkii aad arkaysaan ceelka waa sabadii ceelka ayay doonayaan inay maxay ahaydey wixii sidaas sameeyana isku dayay inay ceelka ama agtiisa qabsadaan ama ay ka sameeyaan نمر وضلالين عد كستوه من الدنيا العبارة الله مقالين هذه لا إله إلا أنا مضيار معي عد كستوه قريبين خلق الجلس إنه متعنبر لفقدنا sidoo kale ciidanka aaraadiyuuda ayaa deegaanka degmada Huluul ku soo qabqabtay dad ka geystay falal amni darro Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid Bulsha TV Elafweyn gudoomiyaha gobolka Sool halkaasi ku hadlay warbaahinta ayaa sheegay ayaa uga digay cid kastoo isku dayda deegaano hor leh oo sharci darro inaan lala ogolaan doonin ama aad arki doontaan iska soo daawan doontaan waxa u dhaxaysaa 5 magaalo oo ah Dhiiraado Agaad Abooyin Diyeeyri dadweynaha kamid ah ayaa waxay rabaan inay deegaameyaan oo ay magaalo cusub ka sameeyaan wada ciidanka qaranka ayaa aasaya
oo saa ka soo tirmaaday magaalada Laascaanood dadkii kale waa soo aasay meelo kale soo calaamiyeen waxaan u sheegaynaa cidii halka qoday ama ku fikirtay inay dagaalayso shanta afarta magaalada inaanay suurtagal ahayn inaan la yeeli karin inaan wax aqal gala oo bilaabo ku qaadan kara aanay ahayn maadaama ay tahay shan magaalo dhexdood oo ay tahay meesha xooluhu ay daaqaan ama shanta magaalo xoolaha lagu dhaqaayay mataqaana ay ku soo foofaan suurtagal ma noqon karto in dagaamin cusub la sameeyo siyaasadda mataqaana xukuumadda ama bolosiga wasaaradda arrimaha gudaha u yaala iyadana waxaa mamnuuca in dagaamin cusub la sameeyo annagoo fulinayna amarkii wasaaradda arrimaha gudaha gobol ahaan waxaan marnaba caqligalahayn ama aan suurtagalahayn ama aan lagu fakeri karin in la sameeyo dagaamin cusub oo hor leh iyada oo ay dagaamaynta bateen iyadoo la waayo xoolihii meesha ku baxsan lahayn xilliga abaarta iyadoo qof kasta oo xasuusan karo abaartiina soo baxday xoolihii waa inay waayeen marka waxaan u sheegaynaa oo halkan fariin miidiya u marinaynaa ciddii halkan qoday inay yihiin dambiilayaal inay yihiin mataqaana kuwa mataqaana haddii ilaahay ku roon yahay baabiinaya deegaanka anigoo ku hadlaya afka xukuumadda iyo afkii barasaabka gobolka Sool oo aan anigu ahay waxaan u sheegaynaa dadweynaha kale ee deegaamada ku nool inay soo sheegaan meelahan oo kale cidda qodaysa ama dagaamin cusub samaynaysa iyadoo aan marnaba suurtagal ahayn waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga digaynaa oo ku adkaynaynaa cidda dagaamin cusub ku talagashay inay samayso inaanay suurtagal ahayn inaan laga yeeri doonin kadibna wuxuu kulan ballaaran kula qaatay degmada Ceegaag odayaashii waxgaradka deegaankaasi isagoo kala hadlay sidii looga hortagi lahaa deegaaminta hor oo sharci darra ah laga deegaameeyo deegaankaasi waxaa kaloo baaqu tiray dadka reer guuraaga iyo dadka degan deegaanadaasi inay ka hortagaan cid kastoo isku dayda in la deegaameeyo dhulka xoolo daaqsimeedka ah deegaankaasi وبرخم عمر أحمد وبانت قرق الجمهورية الصومالي لان لاسعانات نقيميننا قروح يشاي دلك يغا نقيميننا قروح يشاي من لا تريقا قوسارك اي قبيا نذلكو صواريخ ذقيق ذيو مركو قاعو أولوليو أنغو قمم ييسان بان سمدن قسناي قراني مادن سومالي لان كان قدرينين iyo qursikii uu galaan qaram ka sinay waqaadiyadano gaarka iyo qabwataniyade dalkayaga nuqiimaynayna quruxu yeeshay dalkayaga nuqiimaynayna quruxu yeeshay minna qalanjadihu qabiyo qoyskii noloshiisa iyo ubadkiisiyo qatalan qana guranaya qurbihiyo haddii aanu u tegin qaaradda yuruba qarun uga maleexdiyo qarfiyo qorcidliya hawde qoldugson intuu geeyay buu qaaci u tumay qorraxdiyo qabowgiyo wuxuu dhibuucunu qaaday cidiina ma qasbayse ee midaan qasdinay weeyaane waqaadiyadano gaarka iyo qabwadaniyade dalkayaga nuqiimaynayna quruxu yeeshay dalkayaga nuqiimaynayna quruxu yeeshay maalintay qadhaadhaata ay qaraxda baruudu
qumbulaada laysugulaa ku cuuquma cuwifleeyo dadkan kale qaxootay noqdaan qarafay doontaane annagaa hubkaa u qaadanoon qaladi ka yeelayne qaraannimaadan somalilan qaynuunkiiyo xeerka nafdan qaalayga ahiyo qudhaba waanu huraynaye waqaadiyaadano gaarka iyo qabwadaniyeede dalkayaga nu qiimaynaynaa quruxu yeeshaa reereere qaraannimaadan somalilan bay qadariyaane qallindaar ninkii kula kacowad qaldhabaysaye dalkayaga nu qiimaynaynaa quruxu yeeshaa dalkayaga nu qiimaynaynaa quruxu yeeshaaye qisasigiyo waxaan qaaf gangabay qoynkii ku soo gaabshay allaahayoo wada qaadiro qaniyo xildheere qowlkaan nidhaahniyo wixii labta ku qarsoonba quluubaha ada daalacdoon wax kaa qarsoonayne qumanuu rasuulkiyo kuwaa jannada loo qaybshay ee qiray rasuulka runtee racay naga yeel ee qiray rasuulka runta ee raacay naga yeeldhe ashahaadadan qalad lahayn qowlkii nebigiiye ninkii qiraa qiyaamahan ka baxa qallin xisaabeede qumanuu rasuulkiyo kuwaa jannada loo qaybshay qaladi kuwaan lahaynee jannada qallinku raacsiiyey ee qiray rasuulka runta ee racay naga yeel ee qiray rasuulka runta ee raacay naga yeeldhe qalad male qorshaahan toosan iyo qowlkii nebigiiye qalbigiyo qudhaabuu sifay qowlkii nebigiimanuu rasuulkiyo kuwaa jannada loo qaybshay qaladi kuwaan lahaynee jannada qallinku raacsiiyey ee qiray rasuulka runta ee racay naga yeel ee qiray rasuulka runta ee raacay naga yeeldhe qalad male qorshaahan toosan iyo qowlkii nebigiiye qalbigiyo qudhaabuu sifayn qowlkii nebigiiye